السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داوديال maanta waxaynu ku sugannahay oo aanu soo booqanay xarunta barbaarinta carruurta booliska Soomaaliyeed oo aanu jecelnahay in barnaamij gaar ah aanu ka diyaarino halkan oo hooy u ah isla markaana wax lagu baro carruurta qaabka ay wax u bartaan iyo waliba noloshooda sida ay tahay ayaanu jecelnahay inaanu ku eegno barnaamijkan gaarka hadii Allah awood leh uu qadaro xarunta barbaarinta carruurta booliska Soomaaliyeed waxa la aasaasay 25kii bishii 12aad sanadkii 2017 iyadoo aasaaska xarunta ay qayb weyn ka qaateen saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo guddi saraakiil ah oo loo xil saaray ay ugu dambeyn mas'uuliyadda carruurta booliska ay ku wareejiyeen sareeyo guuto Generaal Cali Xirsi Barre Cali Gaab xaruntan oo markii hore lagu furay ilaa 60 arday ayaa haatan waxa wax ka barata ilaa 120 carruur ah oo 30 kamid ah ay gabdho yihiin carruurta agoonta booliska ee ku jira xarunta oo daadoodu ay u dhaxayso 5 sano ilaa 12 jir ayaa waxa halkaasi ay ku haystaan waxbarasho waxayna fasalada ka bilaabanayaan koowaad ilaa iyo fasalka 8aad iyadoo la filayo in 17 kamid ah ay sanadkan u fariisan doonaan imtixaanaadka dawladda madaxda sare ee dawladda Soomaaliya ayaa dhankooda gaara halkaasi si loo dhiirigeliyo carruurta agoonta booliska Ra'iisul Wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble oo dhawaan booqday xarunta xanaanada carruurta agoonta booliska ayaa waxa uu waqti la qaatay carruurta agoonta booliska Soomaaliyeed isagoona mid u gacan qaaday isla markaana kala sheekaystay carruurta xaaladooda daryeelka iyo waxbarashada ay helaan heerka ay tahay Ra'iisul Wasaaraha ayaa xusay in agoontu ay u baahan yihiin taageero iyo isgarab istaag isla markaana ay dawladdu mar walba diyaar u tahay sidii ay carruurta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada agoonta ay u heli lahaayeen daryeel wanaagsan isagoona ku amaanay kaalintooda maamulka gacanta ku haya xarunta agoonta booliska Soomaaliyeed waxana uu kula dardaarmay inay sii wadaan daryeelkooda ku aadan barbaarinta iyo waxbarashada carruurta agoonta booliska taliyaha xarunta barbaarinta carruurta booliska Soomaaliyeed sareeyo guuto Generaal Cali Xirsi Barre Cali Gaab oo ay inoo suuro gashay inaanu ka wareysano xaaladda guud ee carruurta booliska ayaa ugu horeyn waxaynu wax ka weydiinay xarunta iyo qaybaha ay ka kooban tahay bismillaah xaruntan waxa weeye wax walba waxa u horeeya nolosha xaruntu waxay leedahay qayb dadka cuntada lagu siiyo oo loogu diyaariyo waxay leedahay qayb caafimaad waxay leedahay qayb hooy jiifka guryaha waxay leedahay qayb waxbarasho waxay leedahay qayb isboorti garoomo basket iyo waxan ay Soomaalida u taqaano banooniga lagu cayaaro salaxa garoon weyn oo noogu yaala ma dhisna rajayna maalin inuu dhismi doono ilaahay aan ka rajaynaynaa wax walba markii ilaahay ogolaado ayay dhowr goor waa naloo ballan qaaday laakiin weli ma noqon xerada noocyadaas ayay u qaybsantaa xerada waxaa jira tababar faneed isboorti faneedkan markaan ku leeyahay anaga heesaab ma lihin mana heesno laakiin waxaan leenahay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ayaan ka shaqaynaa oo aan u tababarnaa
caruurta booliska oo waqti dheer aan la soo qaadanay ayaa waxay indhaheenu qabanayeen iyagoo si hagaagsan u cunteynaya isla markaana u dareeray masjid looga dhisay gudaha xarunta waxaana masjidka sidoo kale loogu sameeyay qayb ay ku weysa qaataan gabdhaha iyo qayb wiilasha loogu talagalay daawadayaal sida aad u jeedaan halkan waa garoonka kubadda cagta iyo garoonkii kubadda basketka halkan sida aad u jeedaan waa waxa loo yaqaan salaxa sidoo kale waxa ka sii dambeeyo barxad kale oo nooca loo yaqaan bacaadka oo loogu talagalay dhamaantoodba xilliyada madadaalada in caruurtu ay ku ciyaaraan muxuu ahaa ii sheeg sida aad u jeedaanba sida loo qorxiyay waxa ay la mid yihiin garoomada kale ee ka dhisan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaana sidoo kale booqanay qaybaha loogu talagalay jiifka oo wiilasha iyo gabdhaha xarunta ku xareysanay seexdaan sida aad u jeedaanba waxa idin muuqanaya qaybaha loogu talagalay oo qol walbana ay dhex yaalaan sariiro ay seexdaan caruurta oo lambar leh isla markaana loo habeeyay si heer sare ah caruurta aqoonta booliska oo uu gacanta ku hayo taliska booliska ayaa waxay helaan cunno ku filan oo saddexda waqti ah iyo daryeel caafimaad hase ahaatee weli waxaa jira waxyaabo weli caruurta ay u baahan yihiin in laga gacan siiyo waxaan ka ciil qabnaa oo aan tabaynaa cunno maaha caafimaad maaha dhar maaha waxaan tabaynaa hooy yari fasalada wax lagu barto oo aan ahayn fasalada Muqdisho iskoolada dadka dhisan ee degmooyinka ka dhisan ma gaarino iskooladayadu ma gaaraan fasaladaas marka waa tabaynaa waxaan tabaynaa guriyaha hooyga ah wiil iyo gabar wax la isugu dari karo isla ma seexa karaan isku qaarood ma noqon karaan isku cunto ma noqon karaan fasalka aan isku wardiina waxaan rabi lahayn oon baahi u qabnaa oon dowladayada booliiskayaga iyo dowladayada ka rabnaa markaan booliiskayaga leeyahay nolosha halkan ka jirta dhammaan waxaa ka ah kafiil waxaa ka ah booliiska $1 oo askari laga jaray ayaa laga soo aruurishay askarta ayaa wax lagu bartaa $1 oo askari laga jaray ayaad ilmahan wax lagu baraa waxbarashadu waa midda dawladda wasaaradda waxbarashada ayaa iska leh fanka ama isboortiga wasaaradda dhalinyarada ayaa ku guuleysatay oo naga caawisay tartanka quraan akhriska iyo diinta wasaaradda arrimaha diinta waa tabeeleeda meesha ku arkayseen ayaa iska leh waxaa mudnaan leh isbitaalada dalka ee biribaatiga sida isbitaalka kalkaal isbitaalka madiino booliiska isbitaalka indhaha national eye isbitaalka indhaha alnuur isbitaallo badan isbitaal aan soo dhaweynin oo wax noo qabanayn ma jirto xilli caruurta ay ku guda jireen waxbarasho isla markaana macallimiintu ay bixinayeen casharro kala duwan oo aanu fasalada ku booqanay ayaa waxaa caruurta ka muuqanaysay sida ay u jecel yihiin isla markaana ay ugu faraxsan yihiin waxbarashada qaar ka mid ah caruurta aqoonta booliska ayaa waxaynu wax ka weydiinay maadooyinka ay bartaan iyo heerkooda waxbarasho abti magacaaga noogu bilow simane ay siman maxaa bartaa 8 maado maxay kaliin maadooyinka Soomaali Carabi xisaab English technology science tarbiyo maadooyinkaas maadada jeceshaa halasa maadada ugu jeceshaa kulli waa wada jecelahay maado oo ku dhibto ma jirtaa ma jirto okay marka maxaa noo aqrin kartaa oo noo sheegi kartaa Quraan noo aqri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. قرآن كنت مرة؟ أنا جزء السحاد. جزء السدحات. أيوة ويناو قرآن كدمي ددال وحبرشة هير جامعة ذكور جيننا. يا أبتي قولي سو. ما قاعد يشك؟ داير نور داير. داير يورن. وفي عنا. هاي سكول كده قطع داير. حرونتا بربارنتا حرونتا بوليس كصوماليات. هاي فصل كيك اللي قطع؟ فصل السحاد. فصل السدحات. هاي محل وبرا. محل وبرا. إنجليز. ما دنياش رمان. ما دوين كده نعبرتها. هاي ما دلا أجعشها مجرتها ما دوين كاس. ما دوين كده ما هو جلا. كل جود أجعشها. هاي ما دو نبت مجرتها نفتكو كان. ها كل وقت هاي وحيشك تاع مستقبلك محان غني. محان غني مستقبلك مركو. وين نغت؟ دولي. وينا بولم كورجيننا جامعة دمى وحبرية. xaruntan barbaarinta caruurta booliska Soomaaliyeed ayaa marka laga soo tago waxbarashada sidoo kale waxa jira ciyaaro kala duwan oo caruurta halkan lagu baro oo ay ka mid yihiin ciyaaraha meerajaanka iyo sidoo kale karateega. Haddaba aan idinku duwo qaabka ay u ciyaarayaan caruurta iyo waliba sida loo baray.
Shidari gedaan bray. Yeme. Migi gedaan bray. Yeme. Kewesh kamay. Ekte. Özke. Ejoke. Özke. Vaç kirikte. Yeme. Skip. Zanzare. Yeme. Kalksa dişi tukay kamay. Eç. Ne. Sa. Eç. Ne. Sa. C. Yeme. Skip. Zanzare. Yeme. Ayaşıdan. Ayaşıdan. Eç. Ne. Sa. Eç. Ne. Sa. C. Eç. Evet. oo dhammaantiin kugu suurta gashay Ciyaartayna barno muddo badan oo suurta gashay si fudud ku baran si fudud u qab waxa oo hiw raac la dhahayo af Soomaali maahan maxaa Soomaali ma ciyaartan kartay maadaama aan dhaho afkeena waxa la af Japan waa yes af Japan ka markii macnihiisa ku ogaateen macnihiisa aniga macalinka noo sheegay waa la idin sharxay sidii ku barateen marka maxaa ka damacsantiin ciyaarahan hadii aad noqotiin dad fiican ina ku shaqeysan mustaqbalka ka gaar ina hormarisiin yes guuleystaya gudaha xarunta oo aan waqti dheer ku soo wareegnay ayaa guud ahaan xarunta waxa ka muuqanaya dhir fara badan oo lagu beeray iyo qudaarta noocyadeeda kala duwan waxaana isweydiinaysaa ma goobaha loo dalxiis tagaa mise waa xarun lagu xanaaneeyo caruurta agoonta booliska Soomaaliyeed aniga halkan qurxinta u jeedid rag badan ayaa gacanigiisii oo beeraley ay ku jirto oo Soomaali kale ay ku jirto oo nimanka dawada beeraha ay ku jiraan meesha lagu geeyo oo aad ka shaqeynayso inaad si hagar la'aan uga shaqeyso meel muuqata oo lagu imaan karo oo mujtamacu haday yimaadaan ay ku farxayaan inay noqoto maanta adinka ma aadna weysteen saxaafadu ma jeclaateen waxa kale oo intaas ka daran waxa noo baxay hadeer qudaartii anaga moosaan leenahay cunay anaga yaay aan leenahay anaga koosta aan leenahay anaga liin aan leenahay haddana babaay iyo basbaas iyo waxba noo beeran anaga dad hurdaya maahin ma hurdi doono wax kala barbalaa ma jiro wax qabadkay aragteen oo carada ka aragteen waa mid talada iyo amarka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Generaal Cabdi Xasan Xajaar taladiisa marka generaale qurxinta inta la eeg oo xarunta qurxiseen ma waxaad ugu tala gasheen in maxaa ay sheegaan niyad ugu dhistaan caruurta aqoonta iyo inaad sii ballaarisaan goobo kale oo idin banaan wali ma jiraan mise waxaa noo banaan
156 mitir oo isku wareeg ah dhinaca galbeedka waxaa noo bannaan dhinaca waqooyiga 156 mitir dhulkaas booliiska ayaa iska lahaa maadaa ka gaartay xilligii jenaraal maxamed cabshir muuse ayaa la qabtay isbitaalka xilligii intaan burburka la gaarin dhulkan isbitaalka iska lahaa waxyaabo badan ay u ahayd digaaga iyo xoolaha iyo waxyaabaha bacriminta lagu samaynayo dhulkii lagu samayn jiray waay dhulkaasaa bannaan oo isbitaalku intuu raba ka qaadan karo oo annagu intaan rabna ka qaadan karo haddii aan u helno cid noo dhista oo Soomaali ah oo aan dan kale iyo siyaasad iyo problem iyo waxas kale ku jirin waa soo dhaweynina anaga carruur agoon hayna halkaan ku hayna ilmahan agoonta waxa dhalay askarta booliiska ka dhimatay annaga waxaan nahay askar booliis ah shaqaalaha xerada igala shaqeeyo oo tiradooda 30 gaarayso oo shibil ah sharciga booliiska u yaala ay ku shaqeeyaan waxaan nahay dad dawladeed aan nahay dawlad ayaan meesha u joognaa dad dawladeed ayaan nahay dawladayadana waan ka sugaynaa wixii la heli karo ciidamada kale xataa booliiska militariga booliiskaana dhihin militariga asluubta maxaa la dhahaa nabad sugidda way dhintaan xarumahan oo kalena ma laha waa ka cil qabnaa inay leeyihiin oo dhinacayna joogaan waan isku faano oon hoggaan sare oo agoomaha qaranka la dhaho aan samaysano ayaan aniga ku hanweynaa jenaraal cali gaab iyo saraakiisha taliska booliska Soomaaliyeed maadaama ay waqti badan geliyeen xanaanaynta iyo horumarinta carruurta booliska isla markaana ay soo gaarsiiyeen halka ay marayaan iyo bilicda ka muuqanaysa xarunta haddana door intee leeg ayay bulshada Soomaaliyeed iyo qurba joogta ka qaadan karaan dhiirigelinta carruurta agoonta saadarteed waxaan rabaa inaan ka faro shacbiga Soomaaliyeed oo halkan iga daawanaya gudaha iyo dibadda inay u soo gargaaraan walaalahood yatiimka oo agoonta ah ee aabayaashooda iyagoo difaacayo annagana difaacayo qarankana difaacayo loo laayay oo maanta halkan ku sugan inay wax u soo dhiibaan waxna u gartaan hadiyadna u soo diraan iyagoo u soo marsiinaya xarunta agoonta taliska ciidanka booliiska carruurta agoonta booliiska bulshadu carruur waxaa noo joogta hadda waxaa u yar 5 sano qalabkii isboortiga oo wiifooyadii iyo caagadihii meelaha yaala iyo possible waa lagu dhiirin geli karaa kooxo 4 ayaa noo samaysan dharkii isboortiga in loo keeno shabaqyada in loo keeno banooniga in loo keeno koobabka tartanka in loo dhigo dhiirigelinayno intaas in ka badanba waxaa samayn jiray gobolka Banaadir haddana aan rajaynaynaa inay noo sameeyaan mar labaad hafi hadal kuma jirto maamulka gobolka Banaadir gacan balaaran hadda ugu dhow wuxuu idhaayay gudoomiye gobolka Wareega inaa ilmeyga la qadeeyo oo aan la sheekaystaan raba maasha Allah يا مرفنش تلفين سري عرورتي إذا قبل كأنا حكومة عرورتي أنا والده عرورتي أنا لقذيه وأنا شك استنربع مركوا الحمد لله شكر دولة هاي السنة قبل أنا هاي السنة وزارة هاي السنة عيدا بوليس وآباء أيان هاي السنة حالات يدوا هيرسر سيدا إن كسي قرحنا واللي بعده حنوتي بعدين حلي أي دبائل لعيسو حقيقة حداد وقال لي يدين كذا ودق في وراها يحفلت أقبلني quruxda waan soo aragnay waan soo wada daawanay aad buu u mahadsan yahay daawadayaal sareeya guud Generaal Cali Xirsi Barre Cali Gaab taliyaha xarunta barbaarinta carruurta agoonta booliska Soomaaliyeed aad buu u mahadsantahay Generaal waa mahadsantahay adinkan waa idin mahadcelinayna